xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka Wicid Axmed Xirsi Ducaale oo shirkad ku qabtay magaalada Hargeysa gaar ahaan xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka Wicid ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka waramay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale meelaha laga bilaabi doono kaararka codbixiyayaasha waxaana ugu baaqay bulshada qaybadeeda kala duwan in marka ay gaadho waqtiga doorashooyinka bulshada ay doortaan cid wax u qaban karaysa. waxaan doonayaa ugu horeyn inaan hambalyo u diro guddiga doorashooyinka qaranka oo maanta dhaqaajiyay hawshii ugu horeysay ee aynu ka bilaabi lahayn doorashooyinka taasoo ah inay maanta u kala ambabaxeen labadii degmo ee ugu horeeyay ee tijaabada laga qaadi lahaa systemkii doorashooyinka oo ah degmada Oodweyne oo tiimkii maanta u baxeen iyo degmada Balligubadle oo ay berri baxi doonaan tiimkeedu taasoo guddiga doorashooyinka ay tijaabadii ugu horeysay ku qaadi doonto. aad baan ugu hambalyeynaa inay dhaqaajiyeen shaqadii guddiga doorashooyinka ee muddada dheer inagu qaadatay inaynu sugno muran iyo isqabqabsi. insha Allah taala waxaan leenahay hal loo diyaar garoobo maadaama maalinta Arbacada oo tijaabadaas u dhacayso labada degmo ugu horeeyay aynu ka qaadayno hal loo diyaar garoobo doorashadii oo insha Allah taala dhici doonta bisha May 2011 sidii heshiisku ahaa 2021 sidii heshiiska xisbiyada uu ahaa. waxaynu ka cabanaa doorashooyinka cidaynu soo saaro golo deegaan baynu dooranay waa ka cabanay golo baarlamaan baynu dooranay waa ka cabanay madaxweynayaal baynu dooranay waa ka cabanay waxaynu u baahannahay inaynu iska hubsanno marka ugu horeysa cidda aynu dooranayno. waxaynu u baahannahay beelaha haddii lagu dooranayo haddii gobol lagu dooranayo cidda la soo sharaxayo ee la dooranaya inay noqoto cid u qalanta mas'uuliyadda ummadda reer Soomaaliland ay u qaadayso. intaas kadibna xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka Wicid ayaa madaxweynaha ugu baaqay inuu wax ka qabto arrinta muddada dheer soo taagneyd ee ku saabsan muranka ka jira buurta kala jeexan ee magaalada Hargeysa. waxaanu jecelahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu kaga tago waa sidaan anagu samayn lahayn haddaanu xisbiga uu ku guuleysan lahaa gudoomiyaha iyaga iyo madaxweynaha iyaga aanu kula dardaarmi lahayn baanu kula dardaarmay isagana maadaama uu nasiibku keenay ummadda maxaan ku dhahay inuu hogaamiye u noqdo. waxaanu kula dardaarmaynaa inuu noqdo madaxweyne ka taga legacy iyo magac wanaagsan ka taga. waxaanu kula dardaarmaynaa inuu xalliyo ishaysadka iyo qaylada maalin walba taagan ee magaciisa iyo sharafta uu ummadda reer Soomaaliland u sida ay ku waxyeeloobayso ama ku dhaawacmayso arrinta inuu xalliyo. Cabdiqaadir Cudi on Cable TV Hargeysa. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha.